إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ملائكة مركا أوفسانيس مركا سؤالين ويدينيسا وحيابها دحيا وحاكمين ذلك فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء ورنمين يوم أنا وحو سمين جري نداية بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين لله. نبي مركا وحو كشيكي ملائكة تاسي مركا نكا أتماضو يا وحيلة يا أيتها النفس الخبيثة نفيها يحنتي الصبح إلى غضب الله على إله الصبح إلا عرضي واضح ويكون رئيسان نارتي وجيدا وحول مركا النبي نفسه وكوك على عرض رئيسان مرة إنه بحضر جد كيس يدبوا عرضي ملائكة مركا وحاول تنبر نبي كلاليب تحوي سلسلة مركز انت حلقة كقبل الله إلى الله حوق وقسو جيدا يا نفط ولهذا الدنيا لغو أركي ضدك أهل النار كا مركا النفط كبحي سوا كعباد بدنيهين كو صالحين تا وأرماءات قصص عجيبة ونعيبة جراها وشا كصابصا مرة مشاهدة ضد المحاضرة قبل الصومالية وكأهان جرت النارس كينيا جوج جرت جاء اسبتال كينيا كقرن مركا وحي كقرن قيبت النفط مركا قف كبحيسو isla gabadhii baa la soo qaaday Sacuudiga la keenay shaqo ka heshay isla qaybtii baa lagu qoray dadku markay geeriyoonayaan anu gabadhii baan la fariistay waxay tiri Ibrahim markaan Kenya joogay maalinta uu qof loo malaynayo inuu geeriyoonayo dad dhan baa la soo diyaariyaa bay horta sariirta waa lagu xidhay bay tiri afartiisa xubnood waa lagu sii xidhaa markay dhaqaatiirtu leeyihiin saacado kadib uu dhimanayaa nin security xoog badan waa la keenay bay tiri annagana waa nala diyaarin meesha dhan istaan baa la galin bay tiri maxaa yeelay ninkan dagaal buu galayaa saacada geeridu ku timaado waxay tiri isagoo intaas oo dhan ku xidhan iyo intuu xarkaha goosto oo sariirta rogo oo qalabka oo dhan ka tuuro ya cabaadkiisa iyo saxarada iyo kaadida iyo wuxuu isku daray isbitaalka dhan ba halaabayay hadda waxa la keenay tiri markii Sacuudiga oo ka shaqeeya waxay tiri dadkooda xarigna lagu ma xidhxiro securityna looma yeero in badan oo kamid isagoo iska qoslahayn buu bilq naftiga waa ka baxday tiri kuwa barkood iyagu subxaanallah iska hayo iska sheekeynayo muu qalaq naftiga waa ka baxay ma macnaheedu dadku inay saalixiin yihiin laakiin waxaan ka hadlaynaa nabiga sheegay dadka gaalada ah nafta inta ku kala carabteen xoog lagaga saaro markii nafta xoog lagaga saaro bal hada fiir kuwa kale wanaagsanaa buu nabigu barbar dhigay wuxuu kuwa wanaagsanaa markay halka joogaan labadii albaab loo furayaa kii jannada iyo kii naarta waxa la leeyahay naarta booskaas aad gali lahayd haddaad ahlu naar noqoto aad adduunka wax kharibi lahayd laakiin maadaama ka leexatay hadda halkaas aad galaysaa jannada markaas waxa loo soo dirayaa nabigu malaa'ig aad u qurux badan oo dhar qurux badan qabta oo udgoon ka soo urayo hadalkay kula khidaabayaan fiir ama say ula hadlayaan ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah اسلوبك لو لحظه اسلوب عجيبه نفسي في عني صباح صلابه وليبه لان نفط اصل كده حاجه كتمت من السماء الى حقيسان كنمت ارجعي بس صلابه الى ربك راضيه مرضيه الله رالي ولا راليه نبي وحوري markuu arko qofka jannada meesha uu ku leeyahay yee naftiisu waxay leedahay dadajiya isaara ibixiya markaas wuxuu sidii biyuhu u shumaan oo kale uga shumaysaa ikhwaani qofkeen sidaa rabeen inuu noqdo kulligan waan rabnaa Soomaa wallahi shaqa ka sokaysa haddaan rabno maalinta in sida la inoogu bishaareeyo waygeedi sidani maaha ikhwaani waygeedi maaha inaan noloshan ku jirno waygeedi maaha inaan sidan ku noolaano culimadu waxay dhaheen qofkii qafladu ay ku dhacdo maqnaanshahan hadda ku jiro oo kale saddex shay ba isagoo adduunka nool lagu soo dedejiyaa oo shar ah koow taswiifu tawba inuu tawbada dib u dhigo bal hadda u fiirso dhalinyarada waxay warinayaan salaada tukati wuxuu kuleeyahay hadda dhalinyarada aan markaan aanu nin aan noqdo aabahay oo kale markaan gaaro waad arki doontaa waan tukanayaa walaalay ma xijaabati gabadhi waad kuleeyahay hadda inaan baanahay waa inaan ismuujiyo markaan guriga yeesho arki doontaa saan u xijaabto qafladu jirooyinka keentay kamid tahay nin halkan jooga shaqaysta la warinayo diinta islaamka ma barati miskiin ku tukatid wuxuu ku leeyahay laba sano Mareykanka lacag ka urursanaya kawdhe Soomaaliya tagi doona masjidna anaaba dhisi doona hadda lacagteeda masjid ka dhisi doona halkaasna waad arki doontaa saan jaamacada baan gali doona taswiifu tawbada oo dib loo dhigo waxa keenay qaflada hadda dadka hadda inta badan waraysato wuxuu ku leeyahay salaada tukada waan jeclahay inaan soomo waan jeclahay inaan masjid joogo waan jeclahay laakiin waxba iga haysta waxa ka haysta waxa weeye jirro la yiraahdo taswiifu tawbada oo dib loo dhigo jirro ku haysata غفلة أنا كانت عذرك كلاء كانت غفلة وحوي ترك الرضا بالكفاف قفك أو وحير وقنعوال بل هذا في رسالة مريكنك قفك صومالي يجوغ ما أنت هدي لي هذا قف بشر أجرة أو بشي صدح كون أو دولار قاعدة محاضر ملايين إنسان
ilaah baan idinku dhaariyay marka qaxootiyada joogteen ka warrama hadii lagu yiraahdo mushaarkaagu bishii waa $3,000 adoo qaxootiyada jooga see kula ahayd wax maskaxda ka weyn soo ma qanaaca qalbigaaga ku jirtay haddana maanta rag badan baa $3,000 qaata bal weydii nolosha ku noolyahay عدم الرضا بالكفاف عذر waxa kugu dhacaya qanaaca la'aan la yiraahdo wuxuu ku leeyahay niyow waxaan rabaa intaan wax urursado inaan business galo businesskiina lacag lagu ma gali karo 100,000 wax ka yar oo 100,000 markaad ururiso intaas aad rabtaa inaad sii shaqaysato business markaa ku gasho walaalo 10,000 baa kugu filan qaado la 10,000 maanta wax ma tarto 100,000 markaad gaadho waxa ku dhahayaan ma taqaanaa haddaan la helin 10 min 100,000 isku darsato 1 milyan lama business ma suurowdo markaas ugu leeyahay ilaa aan 10 helo min milyan min 100 ma soconaysa lagu leeyahay midba bay ku sii dhiibi nin odayahoon ESL wada dhigan jirnay Soomaaliya yani ESL ka wada dhigan jirnay duqnimo wuxuu ka qabo kursiga ku tukadaa ma fadhiisan karo mana rukuuci karo mana sujuudi karo sidaas weey ESL ka dhigan jirnay markaas waxa la yiri goolkaagu muxuu yahay marka ardayna la weydiinayo wuxuu yiri anigu 7 sano dhakhtarnimo aan baranaya kadibna wadankayga aan kaga shaqeynaya kursigu ku fadhiyaa fadhigaas rukuuci sujuud waa gaab wuxuu ku leeyahay 7 sano marka ESL ka baxo oo PhD dhakhtarnimo aan qaadan doona marka kadibna wadankayga aan kaga shaqeyn doona horta marka la fiiriyo goolkiisu kuwa badan buu ka fiican yahay laakiin bal fiiri himada adduunka uu hayo وسي وينتها يتي آخر سي ماشي وضع مقنتها وحايد أذر حتى جمعة مسكي مونو كسو تكنجر وحايد أذر ما جمعة لسو تكتل حول أذر كرسي قاية وحايد أذر كل بان ديدانه وحايد قلاص كمان أذكر بتمد ديداني دي مسلمين تكرسي ديداني محين ما جمعة نقولها تكتل ضد بضبا قراسكو فرديه أهمية أملاء مركة تاني جمعة لكن وحا أهمية أولى تضمن سنة أختر نماء إيه أسألك مركو لما يئنوا قلوا إخواني مركو حلانا تركوا الرضا بالكفاف قفك هدي غفلة كل على وحي رمضة يقول gabar Soomaaliyeed waxa arkay markii Soomaaliya la jooga shilin aanu soo gali jirin ninkeedu biil bas uu siin jiray halkan markuu yimid ay la yimid boqol waxbay kala qortay meel waxay ku qaadataa baashi la dhihi jiray xaraan inta wax isdaba mar sabareed lacag caydina meel ka qaadataa meel way shaqaysaa kaligeed baa inka waxa soo gala $1,500 haddana ninkii bay bari isfurayaan maxay isku furayaan dhaqaale oo isagii bay leedahay haddana wax keen adag shaqada inuu soo shaqaysay uu daayay koow cayd iyo caruuri balay wax ku qaadato uu daayay laba laga yaabo xataa biil inuu siiyo waxay leedahay bay check dhan baa igu soo wareeji إلا كم في الله هل كان إيمانكم هل كانوا كجرا موقته ترك الرضا بالكفاف يقول الصومالية هذا أشرق يعني نكلا إلى بيل جيت وما قالوا إنه ذكوا على مايكروسوفت ذلك يعني نوجه شيء كيني واحد مركو باكين كي جاري صور دكتين جاري يقول لي إنه أمة ذكروا تب معنا لا ينسي ساوي يعني استقوا تب $1 يوكسين بعدين بخيل لمديزة وأني كمان مايكروسوفت إسكاله إلا القناعة هل كان يكون جرا موقته إيمانك يدرت وهل كان ما هبل عكس السنة قفكي غفلة يكون عظم ترك الرضا بالكفاف بلغ وايا جهده صدحاد او كان يحوي التكاسل في العباده عباده ku cuslaanayso qofka alghafilka ah walaal cibaadada ku cuslaata qofka marka aan ghafilka ahayn cibaadada hadan sii wadno waa baab hada uba daranba qof waliba wuxuu ku leeyahay inuu hadii shaqada afarta la yiraahdo hal ka ama saddexda shaqada waan kici karaa buu ku leeyahay saacad hadaan buuxsado laakiin salaada subax saacad hadaan buuxiyo xataa ma kici karo maxaa keenay ma taqaanaa وغافل ومقيه إلهي بنا حسوسنين قف قدون إلهي حسوسنين وحكول على التكاسل في العبادة قبل وحكول هذا الشيخ وان حجاب ناجري وان فيعنا هدنا إنا حجاب توان ربا لكن وحن بقى علينا وحكا علينا ولا الوحوي وغفلة عذر كان وحاكينا غفلة وحكي انت عذر هذا ودن قفك العبادة يكون إصلاح بنعك لو حد العلماء قفك غفلة كبحة إلهي آخر مرة البحثوستا قلبي يسو جلع سنيه أويا المساجد يدينت وجعل أكو حرم خيرات في قيب قاته وحيدا صدح شيبة إلهي كو أرزقاء إسوا النار وصدح من أبسيط كوضا تعجيل التوبة إلهي وحو براء توبة دك دك ما أنتم مركو قف قلو إسلا عاوة إسلا قلبتو كسر نقنا يا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما أنتم قف حمنا يا إسلا ما أنتم رادين يا هبل تلفون أبدر راد ولا لا وانكو ربي يقرأ الله ولا لا ما أنت وانكو حنتي إلهي ولا لا وانكو سامحي تعجيل التوبة غلط ما كدعي كل الناس خطاؤون ضد قفوا كدعوا زينوا كل عيان يحكوا له وعادي بوي فرن دال فرن سو عادي معه كان قفلوا كل على اساس يقول كان كلام يحكوا له باي هوغي مريكان بو كتغيا افرتن كسعو اويا nin sheekhan marka dhageysanay qiso uu ka sheegay nin dhalinyaro oo soo toobad keen nin fiican buu ahaa wiliga xumaan muuna sameeynin dhalinyaro xun buu la saaxiibay iyagoo waxay ku qalqaaliyaan in keen aan safarnay oo meelaha Asia aan Taiwan iyo meelaha aad maaqa uu raacay hotel bay iska degeen iyagu intay baxaan bay balaayo soo qastaan isna hotelku iska sii joogaa